wareegta ka soo baxday xafiiska maamulka gobolka Gado sumadeeduna tahay xariijin soddon iyo laba xariijin 2020 taariikhdeeduna tahay 17-ka bisha shanaad 2020 ku dhammaan laamaha amniga og taliyaha xasilinta gobolka Gado og taliyaha guutada gobolka Gado ujeedo magacaabis gudoomiye ku-xigeen koobaad ee gobolka Gado ahna madaxa amniga iyo siyaasadda gobolka Gado kadib markuu arkay baahida loo qabay in la helo maamul la jaan qaadi karo isbeddelka guud ee ka socda gobolka Gado kadib markuu arkay aqoontooda kartidooda iyo waayo-aragnimadooda shaqo kadib markuu wada tashi dheer la sameeyay bulshada qeybaheeda kala duwan wuxuu gudoomiye ku-xigeen koobaad ee gobolka Gado xilal u magacaabay mas'uuliyiinta hoos ku xusan kow Ibrahim Ali Xabad waxaa loo magacaabay inuu noqdo maareeyaha garoonka diyaaradaha degmada Garbahare labo Aar Hire Barre waxaa loo magacaabay inuu noqdo maareeyaha garoonka diyaaradaha degmada Boorro saddex Shire Xuseen Yarow waxaa lagu bedelay Maxamed Qorane Cumar inuu noqdo maareeyaha garoonka diyaaradaha degmada Luuq afar Cabdirashiid Hire Hurre waxaa lagu bedelay Cabdiqaadir Cabdi Rasaaq Soofe inuu noqdo maareeyaha garoonka diyaaradaha degmada Doolo ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeen koobaad ee gobolka Gado wuxuu farayaa dhammaan mas'uuliyiinta xilalka kala duwan loo magacaabay inay shaqooyinkooda u gutaan si howlkarnimo daacadnimo iyo cadaalad ku dheehan tahay waxaana u rajaynayaa inay noqdaan kuwa ka soo dhalaalo shaqooyinka loo igmaday wareegtadan waxay dhaqan galaysaa maanta oo taariikhdu ay tahay 17-ka bisha shanaad 2020 oo ah markuu saxeexay barsaab ku-xigeenka koobaad ee gobolka Gado mudane Cusmaan Nuur Xaaji Macallim wabillahi tawfiiq